نجية خليف أو كميدا الأبوهذا دادا يرله يا أبوانا الصوماليان وصفر شغوكي مقالة برعو أيها وحمات مرتين نقول استوديوها مقالة برعو بس نجية خليف كسودو كيس أحمد دجالة إيو جودهان بعض هون كيبل إيو جودهان تدوين هرب برعاد بنروح يدو ما سنت كيس نجية وهالأبور هذا هو نين صحفية وهايستا شهادة ماستر ديجري ونين أقوم بدن صحافة إلى هنا كل رأي إنه أبوان نقضه نجية فالأدية تخلص برتان نجية وكما هرت كيس واد بعد كنتوا ما سنتاي إن دقف مركم مضح عدادة اللي هذا بالتاريخ ذا وحكى ورنو مركز ود تاريخ بدن رنتو وشيء كرا إن أنا كوني سجال بقولي اللي بيسجاش كمان دول كان سومالي قلبي اللي دق مدر اللي نبان كل شيء labadii kun iyo 3 baan dugsiga hoose dhaxa ka bilaabay magaalada Hargeysa labadii kun iyo 12 baan Maxamed Xamed Ali oo Hargeysa ku yaalaan ka baxay labadii kun iyo 14 baan shahaadada koowaad ee siyaasadda ka qaatay jaacad new generation la yiraahdo sababo ku taala sanadkan hadda aynu ku jirnay 2016 kana shahaadada labaad ee masterska oo saxaafadda ku saabsan jaacad la yiraahdo University of London sababa aan ka qaatay hadda arrimaha saxaafadda ayaan ku dhex jiraa dhinaca tababaradii waxaas iyo la xiriira sidoo kale macallin jaamacadeed baan hadda ahay نجي محطوط في مقالة برعو سفر كانت كنت من محل حريرة. horta safarkan waa safarkii labaad weligeed baan runtii case waan burco ku imaado safarkii hore burco ku wuxuu ahaa safar tababar saxaafadda ayaa arrimo sidaas la xiriira safarkan hadda markaa burco ku yimi wuxuu ahaa safar aan doonayay bal bandhig sugaaneed oo la yiraahdo Halkaraan oo magaalada burco ka jira oo inta badan arrimaha dhaqanka iyo sugaanta ka shaqeeya ayaa waxa igu yeeray martiqaad ah inaan magaalada burco balaan bandhig sugaaneed aan ku qabto arrimahaas aan u imi burco hadda masar nagay waxa tahay abwaan daayir soo muuqata goon ma kugu horeysay hal abuurnimado inaad bilowdo horta kaysow sida Soomaaliya waxbarashada dugsiyada hoose ee dhaxal loo bilaabo ama qofku mar shaqo u bilaabo horta hal abuurnimadu aad bay uga duwanta iyadoo wax mar la bilaabo marna laga tago runtii ma aha waa hibo kugu abuuro oo ku soo dhalanayso marka goormaad bilowday inta badan lama yiraahdo waxa goormaad istoontay watuun bay ka soo baxdaa baasho marka waa hibo kugu jirtay marun bay kugu qarxaysaa oo dib markaa ku haysataa ama wax kugu soo baxay oo noloshaada hore ka duwan marka dareentaaba horta inta badan la istoomaa marka waa inta badan waa tuhuniyadu tuhun bay ku timaadaa marka sanadkii 2006 ayaa horta waxaan dadka inta badan sugaanta jecel ila caruurnimada anigoo maqashan raacaan garanayay hooyaday gabayada ay tiris waxa soo dhamaan qaybi jiray marka 2006 ayaa Allah naxariistay salaaniya iyo aabahay dhashayo de boqoliyo dheeraad xilliga jirto kamid ah dadka sugaanta iyo waxaaso aan aad u jeclaa sugaanta waxaan inta badan ruuj ka dhaxli jiray ayaa xilliga geeriyo Allah naxariistay anigoo iskuulka hoose dhigta xilligaas marka wixii ugu horeeyay gabaya aan sameeyay 2006 laakiin bariga ma dareensanay waxaan inuu gabayahay gabay ducayntan iyadoo sameeyo meel ku qoray geeridii sidii baan ku daayay 2011 markaan sekadari ka baxay marka ay hibadii mar labaad soo noqotay maadaama da'dii iyo cimrigii wixii oo dhamay korayaan iyo way aragnimada 2011 marka dib u qorashada cusub sugaantu runtii aan isku tuhmay xilligaas marka gabaygii hore ayaan u sameeyay aan soo saaro arkay isagoo inuu gabayahay 12 iyo 12 13 saddex sanadood isku xiga sugaan baan sameyn jiray laakiin inta badan dadka ma tusi jirin waan soo jeebay horta sugaanta ururi waxa inay sugaan yahay inaad adigu nistuunto waxa tuhunadiga ka yimi u yahay saas horta runtii sugaanta aan ku ururin jiray 2013 dhamaadkeedii baan markaa abwaan hadraawi isku aragnay Dhisaboon xilliga wax ka dhigan jiray sugaantii baan tusay xilligaas markaa igu yiri war bulshada muraayada waxa waa sugaan bulshada horge xilligaas markii ugu horeysay markaa ay heday bulshada sugaantii wax kamid ah aan la wadaago abuurnimada ama humaaga sawirada ee sugaantu saddex gabdhood baa lagu tilmaamay inay ku timaado mid waa hibo ilaahay ku siiyo midna waa hidaraac qoyska iyo reerkooda ay ku soo jireen midna waa culays maskaxeed ama dhibaato oo qofka fuusha taweena ka soo burqisa waxaan hore maskaxdiisa ku jirin saddexda kaba la warqaa wataado horta kayso marka laga hadlayo sugaanta waa run saddexdaas inta badan la sheegaa laakiin waxa laga yaabaa qaar koodina aan nageeyahan aad u waafaqsanayn tusaale ahaan oo kale marka la leeyahay sugaantu waxa weeyaan waa hidaraac waxa jira rag waaweyn oo Soomaaliyeed oo gabi jiray raaga ugaas iyo qabaan bulxad iyo Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan iyo Cabdullaahi Dhoodaan iyo Hadraawi iyo Gaari dadkaas gabi jiray hadii baashu markaa tahay hidaraac caruurtoodii baa wadaag noqon lahayd iyagana oo reera gaaro leeyahay reeraha gabiyaaba soo bixila dadka kale ma gabiyeen hadii baashu ay hidaraac kaliya tahay horta taas waa tahay hadii hawl keentay tahayna de intaas oo qof oo guriyo ku dumeeno balaayo ku dhaco maraakibi ka dago ayaa iyaguna de gabiy lahaa labada horta aad ma si waafaqsanay wuxuu bay ku soo ururaysaa hibo wuxuu ku soo ururaysaa hibo rabaaniya hibadaas markaa ama qofkii markaa hawl isaga yaro gaaro ku dhacday ama hawl bulshada haysata taydo kaliya sugaanta Soomaalida ayaa hibo u badanay sidaan aaminsanahay okay bal way ma sidii kuugu horeysay
aad isku tijaabisay inaad tahay nin abwaana bal horta maansada halkan kayso hadda kuma hayo saan kuu sheegay waxay ahayd maansada ducada ah ee aan ayay xilliga ugu weydiinayay dambi dhaafka taasaa ugu horeyso 2006 bay ahayd 2011kiina maansooyin kale aan tiriyay oo iyaguna inta badan dhalinyarada iyo dhiirigelinteeda iyo waxaasun la xiriira kuwa maanta runtii halkan kuma hayo laakiin wuxuu bay la xiriiraan gabayaduna halkan ka tirin doono wax lamid inta badan dhiirigelinta bulshada u badan kuwaas la xiriiraan waa gabay aslayd waa kuwa maansada aad ku soo hirgashay ama aad ugu jeclayd ee aad yani nigiga ku noqotay bulshada ku baratay bal mid inoo taabo wuxuu baan ku tirin doonaa hadii la dhahay gabaygii ugu dambeeyay gabayga waxa la yiraahdaa waan diiday reernimo waxa la yiraahdaa waan diiday reernimo inta badan wuxuu ka waramayaa qabaa'ilaadkan iyo siyaasadda reeraysan iyo ishaysiga Soomaalida dhexdeeda iyo wixii la xiriira inahaas inta badan gabaygaas uu ku saabsan yahay marka wuxuu taabanayaa meelaha ay sartu ka qulunsan tahay inuu baahanahay inaan wax ka bedelo hal abuurkuna si guud maamul gaar ah uma gabiyo dawlad gaarana uma gabiyo cid gaarana uma gabiyo wuxuu gabiyaa kolba inta bulshadiisa iyo afkiisa ku hadasha haddii ninka hal abuurka ay dunida oo dhan u gabi kari laan dunida oo dhan baan u gabi lahaa laakiin dunida oo dhan isku afmanhiin oo ma gabi karayo haddaan taa ka soo daadego islaamka oo dhan baan u gabi lahaa islaamka oo dhan uma gabi karayo islaamka oo dhan isku afmanhiin oo isma fahmayno laakiin waxaan u gabiyaa inta af Soomaaliga ku hadasha ee aan isfahmayno ee gabayaygu uu mid bas oo u taabanay marka intaas oo runtii uu gabaygani uu la hadlayaa kayso wuxuu cabdi oo danqaarada waqtiga way istakinayaa hamid durugsan dood gaaban iyo ficil dadaalaya dad isjecel dulqaad iyo midnimo dawladnimo taama haddii aan marun door bidaan weynu degilayna guulaha dariiq loo maro iyo dawcad baa jiray iska daba wareeg baynu nahay daayina bidkeena Soomaalidu la hadlaya iska daba wareeg baynu nahay daayina bidkeeda anigana danqaarada waqtigu iyo daliil noqoyay diihaalka muuqdiyo cabdi oo diiftan igu taale dunju igu fogaadaa jira oo cidi dareemayna waagi dilaacaba tashigu iyo daliil noqoyay dumar hawlahoodii xarago waan ka didayaa inaan dunya iyo maal dhaqdana siima door bidee dalkeena la qaybsaday dhulka cadowgu daaqayo dalkeena la kala ooday ee deerka lagu meershay reerahan intay duub tasheen dawladnimo sheegtay hadba nabaradoogi ugu kacshaan meel la duub lahay waxaan ahay nin daala dhacay oo ceel ku soo dubay markaan leeyahay reerahan intay duub tasheen dawladnimo sheegtay bariga hore Soomaalidu dad xoolo dhaqataa bay dad wada markaa isku ologho meel wada degan geeloodo meel daaqay hadad ku soo baxdo sumada aragto waad garanaysaa geelan reer kale way qof deegaankaana waatay sumadana waxay sheegaysaa geelan reer kale Soomaalidu marka dhulkeeda marka sidaa u eegto reer walba intuu calan samaystay marka calankooda soo eegtay reerkoodii baa ku hoos qorantay waad iska garanaysaa inuu reer hebel yihiin marka wuxuu leeyahay reerahan intay duub tasheen dawladnimo sheegtay hadba nabaradoogi ugu kacsha ayaan meel la duubnahay waxaan ahay nin daala dhaco ceel ku soo dumay Soomaalida waxa dooriyay ayaan ku dul marayaa taariikhda duuga hadaan dib uga faaloodo cudud iyo dagaal lagu mahanan dagaladoodii markay ay dariiqi aliyo diintii ka carooday markay ay siyaasiga dardaran heeladaba qaaday markay wixii lagu dayay diiday oran weeyday dilaal iyo malaalnimo markii dollar lagu baaday markii uu gumaysigu dagay gaalka darajaysay markii uu damirkii caqligu degay gaxoon waayay markii uu hankeedii dabcay dib isu soo eegtay dekorooyinkii loo dhigay degashanaysa Soomaalida cudurkeeduna halkaas ku jira dekorooyinkii loo dhigay ay degashanaysa hadaan durxulkaygii murtida ereyga ku dooxol dulaysiga shisheeyahaba uu dabacsanaataana gaaladu waxay damacsan tahay abid ma diidaare hadii se doodu hebel taagantii daris walaalka ay markaas inuu dhiig daadinaa oo isdubana markay cid shisheeyayna haysatay leenugu soo duulimaadka waxba iska ma celin karno hadii se doodu hebel taagan tahay iyo daris walaalkaaya markaas inuu dhiig daadinaa oo istubanaayo gumaysuhu sidoo ku dakanay doqori waa mooge gumaysuhu sidoo ku dakanay doqori waa mooge duhurkii habeenkaba warmuu ku diyaarsaday dibindaabiyadaadu wax badan duubka ku hayaa dugsi nabada inaad seexatana uu ka didayaa hamid durugsan buu leeyahay duruqyo dhaadheer dalkeenaba inuu qaato buu duubka ku hayaa dayacnaanta Soomaaliha ay diiftan ugu raagtay waxa nagaga sii daran hadaan idin dareensiyo inaga wixii lagu dagay daaya garanayna inaga cudurkeen halkii ku jiray inaga wixii lagu dagay daaya garanayna inta aynu dood beena iyo hebel difaacayna inta aynu dood beena iyo hebel difaacayna daciifnimee liidnimo intaan darajo moodayna deelqaaf dhexdeena intaan hanad u dooxayno siyaasigan dayuuska intaan daban ku culeynayna dadnimo iyo guul ah heshaan ima daalicine dabacaanaheedii rag baa duub ka buuxsaday dameeriyaasha Soomaaliya waa dayacanteen markaan leeyahay marka inta aynu dood beena iyo hebel difaacayna qabyaalada maanta Soomaaliya jirta waxa kamid ah bulshada Soomaaliyeed inaanay dareensanaynba waxay u dhimanayaan iyo waxay ka dhimanayaan qof uun baa iska daba socda siyaasi oo reerkooda marka tusaalahaan oo kale hadaan ku siiyo axsaab siyaasi ah hadda Soomaaliland ka jirta gudoomiyaasha xisbiyada hadaynu kala bedelo gudoomiye xisbi hebel aynu wareejinayno gudoomiye xisbi hebelka xisbiga kala ka dhigno waxa xaqiiqo ah in cidina ka mudug reerkooduna way ka daba wareegayaan reerkooduna xisbigii shalay calaamadiisii wixii siisteen intay daadiyaan ilaa waa kan isagu wareegay iyaguna maxay sameynayaan way ka soo daba wareegayaan marka waa intaynu dood beenaha iyo hebel difaacayna halkaas uu markaa kayso taabanaya marka wuxuu leeyahay afartaas waa dood hore shayna ii dihinada qomma wuxuu damacsan yahay
duubka ka cadayna degadii Jabuuti iyo Carta iyo guri dumayro dhan diradhaba awaare iyo ilaa sagag duleedkeeda durdurkii qalaafiye ilaa doole iyo faafan sayidkii halkii uu degiyay iimay darafkeeda danoodii wardheer iyo ilaa gaarisiyo dooga dhagax bur dusheed iyo ilaa webiga daacisa darooriyo halkii aan ku koray sugumadoodkooda qabrida harre dooyaha afleer dooga labi hawle degalkii nagayliyo guracan dabalka la asaaleed diinsoor ilaa dooga sheekh alamsayda ciise duleedada hargeysiyo burciyo dooxyadii adarida kadii kismaayo iyo jiboohira dawaamaya dekadii kismaayo iyo jiboohira dawaamaya xamar dooyaheedii nugaal labada daarood ba gaalkacay labadeeda daraf ee la kala dayray gaalkacayo labadeeda daraf ee la kala dayray Soomaalidu geyiga ay degto iyo degaladeedo dhan midnimo la doondoonaya dooray gaadhabe midnimo la doondoonaya dooray gaadhabe waxba gabaygu ila durkire waxaan ku soo deeray halka marka waxaan tilmaamayaa qofka halabuurka ah doorku bulshada isagu ugu jiro halabuurku ma qofkii dhadhamadu goyso qofkii dhadhamadu goyso baa marka waxaan tilmaamayaa halabuurka maanta Soomaaliya u baahan tahay balsadu way ka laha waxba gabaygu ila durkay waxaan ku soo deeray suugaantu waa deeqa la iyo diiqa gooniye hayeeshay rag baa duminayo lagu danaystay niman baa halkii doog leh iyo saac ku dayday dufariye rag baa shilimayo dunya dhaafsade hayeeshay hadaan dood rasmi deerka ka cadeeyo waa iga digniin iyo wax sheeg door xul iyo faana dirham iyo hadii dollar iyo dahab la soo xaaro dilaalnimo hadii la igu dayaa ama soo doolaalo dunida dhamaanteed hadii darajo la siiyo damacaygu waa dhaafsan yahay dunya iyo maale danta guudni lagu aaminay oo door ah baan ahay iska doodi maayo runtaan ku dul maraya ay qarankeeni dumay baan u hay raacdo loo diray waxba daasad hay tumina waan diiday reernimo marka gabaygaasuna wuxuu ahaa gabaygii waan diiday reernimo abwaanagay had iyo jeer abwaanada Soomaaliyeed ama Soomaaliland gabay ay tirinayaan waxay ku soo diraan Soomaaliya ibuga ma jiro Soomaaliland baad dhalatay gabayga Soomaaliland ka hadlmaayo Soomaaliyeed buu qaaday inta Soomaaliyeed waxa laga yaabaa mid kale oo Puntland saariyo had iyo jeer waxay yiraahdaan abwaanadu markay sababta aad waxaan ku wadaa waa maxay aniga dadka la hadlaya waa Soomaali oo dhan minis market kaygan iyo suuqaygan wax ka iibinaya waa Soomaali dhan taa macnaheedu maxay noqonaysaa halabuur marka laga hadlayo kayso bulsho afkeeda ku hadla Soomaaliya iyo Soomaalinimada waa kala gaar Soomaaliya wax la yiraahdo iyo waxa la yiraahdo Soomaalinimo waa kala gaar wax Soomaaliya la yiraahdo imkaan u kaalamaan hadin cidna hore uga lama hadlay taas waa gaar oo waxay u saabsantay bulshada Soomaaliyeed si iyadu ugu heshiisay u taala Soomaalinimo marka laga hadlayo ka diinsoor jooga iyo ka baabuli jooga iyo ka Carta jooga iyo ka berbera jooga iyo ka Hargeysa jooga gabaygu waa inuu si uga wada dhaxal karabay waaye ka berbera jooga dhibta jinsinimo Soomaalinimo ha waaye da islaamnimo waan gaari kari waayeen aan afkeedii kula wada abwaanimadu waa laba nooc mid qofka oo taagan bay ku soo dhacdo oo tiriya isoo goobta taagan ayuu dhacdo arkaa uu tiriya ninna dib u noqdaa buug buu soo qoraa gabaygu soo diraa sida casharku soo diraa oo soo tafatira waanka marka gabaygaagu marka golka fuulka ahba ee markaas sawirka huma gaarto sawirka aad tirin karto bas waa mid aad soo diyaarinayso soo hagaajinayso sida abwaanada hadda dalka jira waa runeen kayso weynta badan golka fuulku ayaa waxa ahaan jirtay marka darajada halabuurka Soomaaliyeed la kala sheegay leeyahay bal maanta waxa inantaa soo socota wax ka tiri ee abwaanada yidi baa la hayaa iyagoo wada socdo waxa xirkeen qurux badan oo dadna wadada maraysa suur bal inantaa soo socota intaan ayna soo gaarin wax ka dhex golka fuul baa marka ka leeyahay marka kaygu inta badan sida uma badna wuxuu badan yahay suugaanta inta badan uu humaagu kugu soo dhacay humaaga marka si fiican u fahamto kadibna ay wax orintuna ay ku xigto halkaas aan u badanayno abwaanimada marka aragtina hibal leedahay aad gabi karto yaas leedahay oo ku gacan qabteen ama gacan bay kiisiyaan abwaanimadan oo ku dhiirigeliyay ama hore u soo ku yiri sidaayna markii hore aan ku sheegay waaniga ku yiri gabayada waan orin jiray muddo 2 sanadood anigoo bulshada horkeenin marka markii ugu horeeyay qofkii aan saragneen wax suugaan u eegaan horgeeyay waxay ahayd Hadraawi marka Hadraawi wuxuu igu yiri war bulshada muraayada ereygaas yiri bulshada ayaa muraayada waxaana tirinaysaa inay wax macna la yihiin kala cid ku sheegaysana waa bulshada adigu waxaan tiriyo bulshada gaarsi mid ku caaya iyo mid ku amaana labadaba way kaaga soo noqonayaan labada markaad heshaa waxa dareemaysaa waxaana tirinaysaa inay yihiin wax saameyn loo bulshada dhagahooda ku dhacay laakiin dad gadiga maanta gabaydo cid kula hadasho baad weeydo tamacnadu waxa weeyaan waxaana ka hadlaysaa maaha wixii macna lahayd bulshadu u baahan marka qofkii ugu horeeyay runtii siiyay miisaanka ay inay bulshadu iyada cidaayeen muraayada ay tahay Hadraawi buu abwaanimadaada ama humaaga suugaanay maxaa dhaqanka ayuu badan yahay maxaa siyaasaddu u badan yahay maxaa tilmaanta bulshada kolba wixii ku muuqdo u badan yahay maxaa dhinaca jacaylku badan yahay maxaa ku tilmaam lahayd horta si guud kayso arrimaha taabato dhan midba inaan ka yidhi wax waa ka yidhi laakiin
markay bulshada igu soo noqoto inta badan waxay igu yiraahdaan suugaantaadu inta haddana soo gaadhay ee kooban waxay u badan tahay dhinaca siyaasadda jawaab noocaas ay igu soo noqota baynoo tiri mid siyaasadda ku saabsan oo kaga hadlaysa arrimaha xaaladda taagan waddanka Soomaaliya ama Somaliland ama guud ahaan inta Soomaaliya ka hadasha tusaalaan ku soo qaadanaya magaalada Hargeysa anigoo jooga mas jaamaca Hargeysa soo dhex maray kiisoo maalin dabeetana hadda Hargeysa iyo gobollo badan oo Soomaalida dhulkeeda kamid ah waxa ku soo batay dad fara badan oo ajaanib oo dalkan Ethiopia ka yimid sababaha ay doonaan ha u yimaadaan dadka hormada la yiraahdo hadda ugu badan baa leeyahay dabeetana anigoo mas jaamaca Hargeysa dhex maray ayaa waxa dhacday gabadh Oromaaba ilmo yar bay daadahaynayso 7 sano 8 sano meelaha ay jiray mid kale oo ilaa 7-8 bilood jirana way xambaarsanayd hooyaheed marka dabeetana mid yar oo ku weyn Soomaalida baalashayaasha mas jaamaca dhexdiisa fadhiya ayaa ki yaraaye ay sidatay maxaan ku ay daadahayn soo Oromada hab soo kale uga dhirbaaxay dabeetana uu yaro oo af Soomaaliga yar jijibsan soo dabeetana waxay ku jiraan maxaad inay iga dilaysaa dabeetana wuxuu ku naqadkadayna waan ku dilay isaga laftiisu ka yar Soomaaliga waa 7-8 sano meelaha jir arwaan daba socda marka dadintay ku soo jeesatay ku tiri ka dhabarka aan ku sido ma dhirbaaxi doontid ka dhabarka aan ku sido ma dhirbaaxi doontid ilmo yar oo ku tiri ki yaraaye 7 jirka Soomaaliga habay ku tiri ereyga markaan iga saameyn buu igu yeeshay ereyga saameyn ayuu igu yeeshay waayo ilmaha yar maanta 7 bilood jira hadduu Hargeysa 20 jir ku gaaro sharci wax ka qabanaya ma jiraan sharci aad iskaga qabato malihid waa muwaadin Hargeysa ku dhashay sharcigu qaadanaya bari way ka tira badan yihiin waday doonaan 20 ka sano soo guuriyay Hargeysa degayaan inaga dhalinteena way sii socotaa koodi way soo socdaan wax ka qabanaya ma jiraan qaabkiinu maanta u noolahayna wax qorsho aynu ka leenahay dadka soo socda ma jiraan haddaan kaysoo runta ku sheego dhowr habeen baan seexan wahay ereygii ahaa ka dhabarkan ku sida ma dhirbaaxdo dhowr habeen baan ka seexan wahay kadibna anigoo in badan maxaan ku dhahay ereygii rogrogo wali gabayga aan igu soo dhaxay waxaan tiri gabay yiraahdo dhaygag baa la yidhaha gabayga yaab weeyaan wuxuu ka warramayaa bulshadeena iyadana sii tahriibka iyo bulshadeena aan dhaadanaanta badan ku jirin iyo bulshada ku fikiraysa inuu 20 sano inankeedu Hargeysa haduu doonada isagu ka taliyo kii yaraay reer Hargeysa le inankeyga Hargeysa gudaheeda kuma dhirbaaxi doonto oo deerun ah ima kaabay ifafaalaheeda muuqdo maxaa 20 sano ka sheegaysa marka gabayga dhaygag baa la yiraahdaa wax nooga tiri wuxuu yiri hodanay dhawaaqaad tiri dhuuxay hadalkii marna dheelalow kuma gabiyo iyo xaaja dhalanteeda dhudii qaasiliye baan hayaa macallin doodaane gobernimo abwaan dhawraya oo dhaadan baan ay hodan waa inaan halabuurka dadka suugaanta ku jira deetana wayna kaftanto waxay ku jiri aniga ninkaysa galay la yiraahdo labadeeduba raadi sababaan hore deetana Hargeysa wadanim isna burcuuyim dadna waxay ku tuwarkaysa markuu Hargeysa waa ka naaxay adigu maxaa la naaxay waa Hargeysa dhowr bilood jooga waxbarashada ay ka dhamaatay halkaas ereyga humaagiisa markaa gabayga aan ka helay hodanay dhawaaqaad tiri dhuuxay hadalkii marna dheelalo kuma gabiyo iyo xaaja dhalanteeda dhudii qaasiniye baan hayaa macallin doodaane waxaan la dhuubnahay waxaan la dhalan guuray dhibaatooyin xanuun baan qabaa nacasku dhaadayne dheefuma hawoodo iyo inaan dhooni raadsaday dhadhamiya xarraga waan ka tagay dheeman iyo luule dhaqashiya haweermo holado gaafaf lay dhigee 100 dhaawac baa igu dhiciyo waliba dheeraade waxaan la dhaygay nin ragi dhowran kari waaye dhabanka iyo madaxan hayaa kuma dharaaroode dhulkiisii nin cadow dheelmiyay oo dheeliyaan hayo oo waliba kii dhicin lahaa dollar dhaafsaday dhib kale oo ka daran baa jirta oo taa ka dhumac weeyna dhalinyaradu waa xooga oo qaran ku dhaatay dhalinyaradu waa dhaayihii iyo dhuuxa aadmiga dhalinyahay dhamaanta xil baa dheega ku suray dhalinyahay halaag baa dhacay iyo dhamac rasaaseed dhalinyahay dalkeenii dhamaa maanta waa dhacna dhalinyahay dhibaatay qabaan dhumuc dadkeenii dhiilada sokeeyaha rag baa daabada u tumay dhagaraha qabiilkii warmaha la isku dhacdiisho waligeedba dheef lagama cunin dhudin colaadeed dhalinteen waxay dhowraysaa dhalinta weeyaan idinkuna hadaa dhoohantiin waa dhabcaalnime dhib kale oo ka daran baa jirta oo taa ka dhumac weeyna siyaasiyiintu waa niman dhadiga dhugiya arlaaye waa niman gumaystuhu dhalay oo dhaqan wadaagaane gidigoodba waa wada dhufaan gaalku dhaansade waa dhir way cunayoon mid kale uga dhawaada ninka dhaantada u qaadayo dhoohanaata ninka laba xisbi kala dooraya ama laba siyaasi la kala socda waa laba waraabe waa waraabe madow iyo mid cad marka adigu hadda tira waraabaha madow iyo ka cad mi aniga ka madowyaan oo cuno ka cadihay cuno nin laba waraaba kala dooranaya wax siyaasado la kala doortaan macnaha ma jiraan siyaasiyiintu waa niman dhadiga dhugiya arlaaye waa niman gumaystuhu dhalo dhaqan wadaagaane gidigoodba waa wada dhufaan gaalku dhaansade waa dhir way cunayoon mid kale uga dhawaadaay ninka dhaantada u qaadayo dhoohana tahay dhib kale oo ka daran baa jirta oo taa ka dhumac weeyna nimankii hawaash naga dhacay iyo dheenta labi hawle dhoobada waariya raggii faafa naga dheelmay dhagax buur ilaa dhooba madow tan iyo dheekaaso ceelkii dhanaane iyo raggii dheenta naga xoogay lafta dhaqaya boor iyo wadheer iyo wala dhinaciisa
dhagax madow ilaa dheeto iyo waraha dhaadheerba kaymaha dhamaajada leh iyo dheega xamaraadba isku dhoon dharkaymaale iyo dhoolihii adari dhambal iyo ilaa diri dhabood yaa ugu dhimanaysa dhulka iyaga raggii naga dhacay ee dhaqasho noo diiday maantana waxay dhaan fureen kobaan la dhaabay maantana waxay dhaan fureen waa tan leynankayga hargeysa kuma dharbaaxaysid maantana waxay dhaan fureen kobaan la dhaadayne dhigmanimaan lahayn bay la tahay dhigmanimaan lahayn bay la tahay dheelaliya beene sahankoodu uu dheer yihiin baaqa loo dhigaye dhiganaha duruusta iyo haddaad dhigato taariikhda Falastiin sidii loo dhacay dhalan wadaagnahay Falastiin sidii loo dhacay ayaan dhalan wada Falastiin waa lagu soo guuro Falastiin sidii loo dhacay dhalan wadaagnahay aniguna odhaahdaan dhigaa dhaxalgal weeyaan dhagxumadu intay ka fogtaa la iska dhowraaye haddaan hanada wada dhiiran iyo geesiyo u dhaaran haddiinaan u dhiban diinta iyo dhaadashada ciid dhuuxiyo haddiinaan u shubi dhiigga iyo heenka maba dheera goortay dalkaba inaga dheelmaane dhaqsadoo ka kaca lama fadhiyo dhalondhal ceebeed kaasina wuxuu ahaa gabaygii dhayga nageeye abaan daayar baat had iyo jeer ragii abwaanadii hore ee Soomaalida waxa lagu yaqaan markay abwaannimo hal abuur sameynayaan hal abuurkoodu wuxuu dooni jiray inuu wax bedelo aragti markaa u muuqata ay dooni jireen inuu bedelo hadhawaata ma fogaato qaarna waxay doonayaan dadka hal abuurnimadoodu in lagu barto oo habwaan waa abwaan ama ku soo shaabaxo laakiin aanu macno badan sameyn adiga maasooyinkaagu ma kuwa doonayso inaad wax ku bedesho ba fikir ama nidaam aad bulshada soo bandhigaysid mise waxa weeye mid aad doonayso inaad noqdo nageeye abwaan caana sac badan loo tumo aad loo jeclaysto haddaan doonayay inaan abwaan caana noqdo dee kaysow heeso ma sameyn lahaa intaas horta imka caan lagu noqdaa heesa intaad samayso fara badan oo iska aanay xigmad sii badanna ku jirin oo hiblaayo qurux badanta iyo way socod wanaagsantahay ay baad u dhiibaysaa dabeetana ku heeso musicna waa la garaacay dadkuna way dhageysanayaan kadibna caan baad noqonaysaa horta caanimada maanta intaas ka xigsan nin baa wuxuu lahaa la yiraahdo Cabdirasaaq ayaa gabay u tiri waxa ku jira cudur muuqayli baa ku dhacay curadadeenni cudur muuqayli haddii wuxuu baa caanimo intaas haddii ay tahay laakiin qofku markuu doonayo inuu wax bedelo muhiim ah xataa qofka bedelaya inuu isaga noqdo inuu isagu cid wax bedelaysa noqdo muhiim ma aha laakiin waxa muhiim ah inuu fikirku hirgalo inuu isagu hirgaliyaa muhiim ah waxa uu xambaarsan yahay laakiin inuu guuleysto ayaa isaga muhiim intuu doonay sanaha qaadato laakiin waxa isagu doonayay inuu hirgalo ayuu baa aniga wuxuu baa muhiim ah waxa aan ka gabayay tafraaruqa bulshadu inuu dhamaado tanigay muhiimka ay waata cidii hirgelinaysa ciday doonto ha noqdo inta aad ku sugtay suugaanta hal abuurnimada suugaaneed waxa muddo imka waa muddo dheer oo 10 sano gaaraysa maxaa dhibaato ka soo qabsaday maxaa halis ka soo martay intii suugaanta badan aad tirinaysay aad tilmaami kartaa ama maskaxdaada ka guuxayaad ilaawi karin horta deeymka 3 sanadood ugu dambeeyay wali may dhamaanin 2014 bilowgeedii baan suugaanta waxaan tiri wax kamid ah bulshada soo gaarsiiyay waa muddo 3 sano wali gaarahay 3 sanadood wax kooban oo kolba wixii fikirkaygu ahaa uma bulshada gaarsiiyay wixii ugu badanayd aan islaha bulshada gaarsiiyay wali waa wax aanan duubin ama aan bulshada dhagahooda gaarin hadduun baan Hargeysa iyo Somaliland iyo meelihii wax lagu duubi karayaan ku soo noqdo intii kala maahay dalka waa ka maqnaa dhibaatooyinka ugu weyn ee ku soo food saari kara waxa weeyaan xaqii baadilku mar walba kayso way loolamayaan waxa maanta gabayga aynu tilmaamayna aynu leenahay Soomaalidu ha toosto iyadoo ha isku tashato hadii kala tagaysay hadii israacisaba iyadoo wax noqoto oo go'aan iyada ka yimiyaan wax loo yeedhin dad badan oo diidan baa jira walaal oo inaynu inagu gudaheena maxaan ku raayso soo hor fadhiisano in ama heshiina ama kala tagna dadaan ogolayn baa jira saa la isu surnaado dadka waa la garanaya dhibaatada ugu weyn qof maanta fikirkaas sida ka hor iman kartaan waa cidaas marka taa laga yimaado dhibaatooyin badan baa dalkeena ka jira ama Soomaalidu hadda jeer ku habsaday marka siyaasiyiinta iyo tafraaruq laga yimaado tahriibaa jirta wadaniyad xumaa jirta oo dadku wadaniyada ma yaqaano arimaha iyada wax ma ka tirsan waxa jira gabay la qurbadiid waxaan kaga warramayoon inta badan dhalinyaradeenu markay tahriibayaan waxay kaala hadlayaan markuu Hargeysa ama Burco ilmihii ka tago ilaa iyo uu tagayo Talyaaniga inta ayuu kaaga warramay qoray waa intaas ay dhibaato u taala inta markaan dhaafay Talyaaniga gaadhay jannadii ifkaan tagayaniyo xagga marka waxa laga aaminsan yahay meel qurux badan oo maxaan ku yiraahdaa qofku hadduu intaas saxaraha Ilaahay ku nabadgeliyo doonida uu noloshiisa waxyaabo badan kaga bedeli karo xaqiiqduna runtii aad bay uga duwan tahay waxaad arkaysaa intaas oo dhalinyaro oo tahriibto markii meeshii tageen kooranaya war sidii aanu moodaynay ma aha marka waxa jira gabay aan qurbadiid u bixiyo aan kaga warramayo bal maraaxisha halka yaala ee qofka dhalinyarada uu u baahan yahay inuu ka jawaabo inta aanu go'aan tahriibaha qaadanin
marka silsilad buu gabaygan dabcan xilliga uu ku jiray niman halabuur oo qurbaha jooga iyo niman halabuur oo meelahan jooga geeska Afrika isu hal celinayay qaarna xaggan ay difaacayeen qaarna xaggaas ay difaacayeen muddo silsiladaas ay qaadatay markii dambe anigu markaa soo galay marka nimankii halabuurka ahaa qurbaha joogay baa su'aalo weydiinaya su'aalahaas marka waxay ka warramay wardi su'aalaha ay ka jawaabtaan cid waloo Hargeysa maanta joogta ama Burco joogta inay tahriibtaan naga u ogolaanayna oo dalkii laga soo guuro laakiin bal su'aalahan ka jawaaba marka waxa ku jira dacallada Nugaaliya oo jooga darar weynada ka Kismaayo iyaanoo xamar dawaafaya doonyaha Nugaaliyaanoo haradigeeda alla diri dhaba waariye ilaa sagag duleedkeeda durdurkii qalaafo iyo ilaa doolaya faafasayidka halkii uu dagiyay imay darafkeeda danoodii wardheer iyo ilaa gaarisiyo doog dhagax buurdusheedii ilaa webiga daacisa dalkayga barwaaqa anuu dabac ku maalaya waa su'aal daaweyn oo ragid maraga diidayna maniga dalkayga nimca duhur ka dheemaala waa qofkii la doonay inuu tahriiba la weydiinaya maniga dalkayga nimca duhur ka dheemaala maniga dabayshiyo hanfiga saxara doormooda maniga intaan dooni karo nolosha dayreeya maniga intaan dabada tago dumar u meelmeel waxyaaba kale soo ceebta ay qurbaha laga sheegay waxa kamid ah nin weyn oo hebel oo aad garanayso baa tagay wuxuu baa loonay islaan Swedish oo rifan iyo lisan oo ku dhacay baa loonay islaanta u meelo lacag ku qaado dimuqraadiyad wala kuwa dimuqraadiyad xaqi kale loo rogayniyo waxa kale uu rogantahay inantii wanaagsaneed aad garanaysa heblaayana markay tahriibto iyaduna islaan oday kale oo Swedish oo rifan waliba akhlaaq xumada waa la isu weydaariyaa baa leeyahay waa la isu weydaariyaa inankana waxa la yiraahdaa islaanta u meelo inantana waxa la yiraahdaa odaygu waxyaaba daruntii foolxun waxyaaba keenay waxa kamid qofkii maadaama dalkan waxba ku baran sharci aanu haysan qaxoonti uu iska yahay Afrikaan yahay Muslim yahay bahdilan yahay shaqooyinka hoose loo dirayaa bahdilan maniga dalkayga nimca door ka dheemaala maniga dabayshiyo hanfiga saxara doormoodo maniga intaan dooni karo nolosha dayreeya maniga intaan dabada tago dumar u meedmeedha maniga dameeraha u dhigay qamandi doogowday maniga darogada caboodiinta ka carabada warsi iyo maana kuma maxoola dibadiyaala balse nimanka ila doodayo waa su'aal diina carabal diida weydinkii laha waanu dirnaa nimanka halabuurka baan la hadlayay war wadcigan hor yaale dibal carabal diida weydinkii laha waanu dirnaa marka gabay noocaas runtii kiisoo inta aan ka soo qaadan karo ayaa walaal jira abaalnada Soomaaliyeed nin kasta markuu doonayo inuu qoraal noqdo ama wax sameeyo ama wariyo noqdo steel buu khudada cid buu khudada usra cida gaad halka gaad adigu abaalnada Soomaaliyeed keebaas leed ka gaad ama ku dayo horta kiisoo weyn waa runo qofku wuxuu u baahan yahay tusaale cid uu daba gal ku daydo ayuu runtii u baahan yahay horta waxaan anagu tiriyo ugu badan waa gabay maansooyinka qiimahooda kale waan tiriyaa laakiin waa ku yarahay marka u baahanahay qof gabay tiriyo inaan ku daydo halabuurkii kale Soomaaliyeed oo dhan wiiga hadhaya abwaanadii wuxuu baa ii soo hadhay intii gabayga tirin jirtay in baa dhaqanka ka gabi jirtay in baa jacaylka ka gabi jirtay in baa arrimo kale ka gabi jirtay in baa qabyaalada ka gabi jirtay in baa siyaasadda iyo hoggaanka ummadda ka gabi jirtay halabuurkii kale marka uu iga hadhaya waxaan ku sii dayeenayaa intii hoggaanka iyo bulshada sidii loo hogaamiyo ka gabi jirtay marka waxa maskaxdaada ku soo dhacay marka xaajada nafqalooc Cabdullaahi Sultaan Timcad iyo rag lamid qofka koowaad marka aniga tusaalahay waa xaajada nafqalooc bal waxa imika noo tirsan marka dadka aan ka yaranasano bargabay jacayla ama dhinaca haweenka ma ka tirsan dhinacooda ha gabayo badan oo aan arrimaha kaga warramay runtii way jiraan haddii jacayl laga hadlayana waa laba dhinac waa dhinac macaaniyo iyo dhinac qaraad marka dhinac macaan baan ku soo qabtay mise dhinac qaraad ma mid aad isku dartay qaraad iyo macaan ma haysa maya iskuma darmasi karaan baa iskuma waxaan ku soo qaban doonaa kaysoo gabay la yiraahdo xarub caashaq inta togdheer ku tirsan oo soo qabo ma ilayskii togdheer waayahay ilayska togdheer baa la yiraahdaa marka la dooranayo ilayska sanaag baa la yiraahdaa kolba waa halkii la joogo une wuxuu ka hadlayaa inan qurux badan hibooyin fara badan leh qurux fara badan leh ilayskii sanaag ku sheeg hadaa doonto ilayskii togdheer ku sheego gabaygu magacaas uu leeyahay labadan magac midna aan ugu maan bixin cid kale oo bixisa gabaygaas marka wuxuu ka warramayaa inan aad muddo wada socoteen oo marka aad doonayso waxaan ku yiraahdaa inaad bal bandhigto jacaylkiin halku ku socday iyo furkiisu halku ku socdo marka wuxuu yiri in dhaweydugaas way ma tireen erayadaydiiyo iibiyo bilaash laguma helo ama se iidaana waa ilhaana ii gaara iyo amarra waaweyn in ragina ujeedu murtida ku aqtiraacay iyo amaahi dhagahaaga iyo aalada maqalka afdamo intuu maygu helay daadku alalaasi oo geel irmaan iyo ka reeb awlax laga duugo oo irmaanka oo geel irmaan iyo ka reeb awlax laga duugo oo gubaadka keymaha ka baxay la ashqaraarayo oo gaari dumaraqalka iyo haamaha aslayso oo gaari dumaraqalka iyo haamaha aslayso oo bad dhalaan iyo mushxarad la isu bateeyay barbaartuna aroos iyo mushxarad la isu bateeyay oo bad dhalaan iyo mushxarad daanto orinayso aminta la yaab kale nafluhu waa u ololaayay inay yahay ninkii gelin arka oon tooga bayda inay yahay ilaahay ka dhigay uumiyaha gaara ruuxan adiga kubaag dhigo aadan muu dhalayna nabi yuusuf ehel baatiin say u egtahay quruxdii adduunka oo idil adiga weeyaan
nebi yuusufkii la yidhi quruxda adduunka babar baa la siiyey baad leedahay nebi yuusuf ee helbaad tihiin say u eg tahay quruxdii adduunka oo idile adiga weeyaane ililaha galdoor iyo guracana lamsidaaciisa aroorida bannaan iyo wardheer kaymihii adari awaare iyo laanqaydhihiyo iimay darafkooda isha dhaqaya boor iyo afmado amase ay qaada udubkii togdheer iyo nugaal saylac iyo awdal xamarweyn agteeda iyo dhulku eebba nagu beeray ubaq iyo nagayliyo jigjiga tan iyo ood weyne Soomaalidu arliga ay degtay ayra lagu maalo hablaha aynigaaga markaan gees walba u eegay asaaga hablaha kacay markaan wada ilaaleeyay adigay afkayga qalbiga ku ogolaadeen ujeedada haddaan ku furfuro ereyga suugaanta xuural caynta aakhire jirta ee oonka lagu reebo ooriyaha jannada jooga iyo ilaaladaha khayrka aayadaha hablaha lagu xusaad ila egtay baadkiisa u fiirso quruxda adduunka taalay oo dhan baa intii kugu filaan weydada inantan sidaad maxaan ku raawo amaanayso ayaa waxaad leedahay ooriyaha jannada jooga oo xuural cayntii ooriyaha jannada jooga iyo ilaaladaha khayrka aayadaha hablaha lagu xusay ayaad ila egtahay sidan eebahay ku qorqoray waa af kala qaaday amaantaada lama koobi karo kumana yaamooda inayskii sanaag baad iyo wixii doolooda ashqaraarka muuqaagu waa lama ilaa waana dayax soo iftiimaata iyo sagal arooriyada dayax soo iftiimaata iyo sagal arooriyada anshax iyo asluub iyo xishood eebba kugu beeriyo hooyadii ku soo ababisay ee uurka kugu qaaday afka hooyadii ku dhigtay aayadaha diinta abaalkeeda lama koobi karo idan ilaahay aniguna dartaa baanu nacay aadamii kale ee aramida jacaylka wadno amarka diidaayay aleelkii dharaartada baadaan ku irdhaysnahay aragaaga iyo maqalka waan ku istareexay adigaan ilwaaday hablaha ka ishaaqsaday adigaan adduunyadan camiran kaaga oodnahay araxda iyo beerkaad ku taal idil ahaantooda edna sharaf حتى magacyadu la baxaysa idna sharaf adan kula baxay aaminiye luule cidna kuma agdhigo ina cabday daayina bidkay sida hooyo baday dhashaan kuugu ololaaye erey kalana waa ila xid iyo dood aftahameeda waa door xul abidkii jiriyo oday ka soo gaadhay dumar lama afduube waxaad u hanjabaysaa de moogtahay halabuurku de waxa jira inta soo halabuuro Soomaaliyeed oo la yaqaano nin boqol geel haysta nin gabya oo gabadha ka qaaday ayaa buuxa annati baan markaa ku hanjabaya dhacdayna de macna dumar lama afduube xurma lagu aroosaaye soo bad dhalaana hablaha loo abtiriyay hadbeeraya gaara iyo tixaa lagu ilaaqaaye amaan iyo waxa loo tirshaa sheeka alifley alf leel waleel ba hablaha lagu ilqeeyay anigu ustaad baan ku ahay hawlaha adag goortaan ilwaaday koodhay fulihii iimo iyo haduu arhamaansado dhurwa aamus baa diray nin kasto adduunka ku sasabay ayarkaas socay abwaanimo nin sheegtaan iyo geesi la arkay abwaanimo nin sheegtaan iyo geesi la arkay haddaan hadalka soo ururiyo oo nubuucda ku taabto haasaawheeno aflaxa dhaxal la arkay ayaama ka haray geedigii awrta loo raray erer meheriya aroos wada socda ayaa soo abaabuliyay erer yaa washba dalxiis aadi laba jeere oogiyo saraag baad ku tagi geenyo orod dheer ama beerihii aw baraad soo indhaydhayna ubadgeesi dhalay baad u noqon hooyadoodu baxe ubadgeesi dhalay ayaad u noqon hooyadoodu baxe amiin baad ku curan oo warsame waad ku ulatayna anwar iyo abdeeq baa ku xigay aadan iyo nuure anwar iyo abdeeq baa ku xigay aadan iyo nuure amran iyo ugbaad iyo xamdaan aabahood noqonay adhaxda fardowsi igu qaban eeba mahadii waa toba caruur adhaxda fardowsi igu qaban eeba mahadii alalaaska iyo reenku waa qalgalkeeniya ayaama alalaaska iyo reenku waa qalgalkeeniya insha Allah raas lagu dago ayaan aabka ku hayaa adna samirogo ina cabtay guusha way iman kaasoo ugu dambeyntii inoo gabagabeynayna bandhig baad qabataa hada jeer ama suugaanta laga hadlayo kii u dambeeyay burcuha su'aalaha lagu weydiiyaa su'aalihii dhalinyarada maansada dhageysanay gabayada ku weydiiyeen su'aalihii kuugu yaabka badnaa kaaga soo baxay aragtida dadweynaha tabar ka soo qaadan kartaa bandhigan wuxuu ahaa bandhigii nageeyahaana kii labaad aan qabtaabuha sanadkii hore sanadkan ku jirna bilowgiisii markaan Addis Ababa ka imi anigoo research dalka u joogay cilmi baaris sameynaya ayaa bandhig suugaanimo dhalinyarada iyaguna hal qor leeyahay Hargeysa ay bandhig suugaanadkii koowaad Hargeysa ku qabteen bandhigii labaadna waa inaga hadda burca u nimi su'aalaha inta badan marka bandhiga laga taga la soo weydiiyaa ama warbaahinta laga soo weydiiyo ama Facebook laga soo weydiiyo ama si toos ah markaan dhalinyarada is weydiino laga soo weydiiyo su'aalaha ugu badan ee la weydiiyo ugu badan yihiin waxa weeyaan gabayadeedu waxay ku saabsan yihiin runtii la xiriira oo ah inta faraaruqa ay maanta Soomaaliya ka baxdo su'aalaha dhalinyarada ama dad ku diisay adu qaadan weyday ama yaa kugu badnaa ma jiraan su'aalahan oo kale su'aal bayntaan la gaarin ayaa maan habeenkii markii bandhigii la qabanayay ayaa ninka halabuurkii intaanu isagu oran anigu xasan aaminsanay gabaygiisa sheegay wuxuu aaminsan yahay intaanu isagu hadlin oo oran waxa xasan aaminsanahay gabaygan uu tirinayaaba waxa laga dhaxar qofkani muxuu aaminsan yahay dadna nin halabuurkii meesha joogay kamida ayaa hadlay wuxuu yiri qofka halabuurkii waxa laga dhaxarka wuxuu aaminsan nageeyaa wuxuu aaminsan si wanaagsan baa u garanaysan soo ma aha buu dadna waxay yiraahdaan si wanaagsan baan u garanayna nageeyaa wax Soomaali weyn la yiraahdo aaminsan yahay wixii ugu qosolka badan runtii ee bulshadaadu markay waxaaga dhageysato fariimaha kaaga soo noqonay runtii taas ay igu qosol iyo yaab labadaba badnay bandhigada wali su'aashan u dambaysa bandhigada qabato wali ma isleedahay
fariintii aad maansadaada ugu tala gashay gabadh inaad gudbiso dadka hortaada soo fadhiya inta badan way gaadhay mise waxaas leedahay weli ma gaadhin horta tallaabay kaysow runtii ay ku gaarsiinaysaa anigu warbaahintaan bartay meelaha ugu fiican ee bulshada laga bedeli karo waxaa ka mid wax la yidhaha intellectual leadership dadka xilka haya maaha waxa weeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan aqoon-yahanka ama culimada ha ahaato ama halabuurka ha ahaado ama saxaafadda ha ahaato ama aqoon-yahanka kala ahaado ama jaamacaadka ha ahaado meelahaas horta bulshada laga bedelaa inta badan qof walibana nolosha dhacan buu ku leeyahay aniga nageey ahaan inta halabuurka waxaana laga doonayaa dhacantii hal abuurnimo ee halabuur wixii laga rabay inaan anagu halkayga ka habsaamin saxaafadana waxa laga rabay inaan meesheeda ka habsaamin macalinka waxa laga rabay inaan halkiisa ka habsaamin wadaadka waxa laga rabay inaan halkiisa ka habsaamin marka la isku dardar abuurta isbedelku imanaya wax isbedel leeyahay meel taagan ma jiradee marka aniga taysaaran waxa weeyaan wixii aniga la iga doonayay oo inta badan af ah maadaama halabuur tahay waxa ugu badan waa af wixii ugu badnaayo af ah in anigu gudbiyaaba weeyay xilkay saaran u yahay sida loo qaadan inta badan bulshadayda ay inta badan runtii ku xidhanta ugu dambeyn ma jiraan maanso gabadha tirisan mid ay bulshadu duuday ama dib kaas noqday kaas waa qalad ka dhaqankaad ku gaftay ka cid baad ku aflagaadistay taas wali ma ka hortay wuxuu baan inta badan ka taxadiraa inaan taas oo kala dhicin laakiin igu soo noqdo la igu wali halkaas sidaa ka bedel wali ma arag hadii laakiin la yimaadana wali diyaar baan ahay waana bedelay intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa waraysigii koobnaa ayaan la yeelanay abaan nageeye cali khaliif oo marti noogu ahaa stuudiyaha magaalada Burco intaynu barnaamijkan oo kala ku kulmayno dhamaantiin waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo nolol kulante aad ayaad maantan tahay Mr. Nageeye Axmed Digaale Maxamed British Macaani iyo dhamaan Honkiba TV Burco aad baa mahadsan